Assalaamu calaykum waa salaamantiin dhammaantiin meel walba dunida ka joogtaan. Fariintan Kowsar Janaad ayaan u dirayaa. Fariintan Kowsar gaarsiiya. Kowsar ay hunno waa lagu raadinoyaa. Askar baa ku raadinayso. Xabso Queen waa naag dagoodii ah horta. Dagoodiyaha iyo garaha ma garanaysaa dowladda ayaga u badan. Askar haddii la ayaga u badan. For example gabadhi maalin dhaweeyay la afduuwaay gabar garra ay ahayd dadkii afduween dadaal badan kadib waa la soo helay Soomaad arkin marka waa lagu raadinayaa waa run keeskaada booliska ayuu yeelaa xabso hadda dagaal iyo gacan qaad hadda wixii ka dambeeyay kuma jirto because sheekada waxay gaartay dowladda gaartay sheekada sharciga gaartay waxaad ku sameysana ma sameynin ma dhihi kartid hadda oo ma inkiri kartid oo ma caayin ma dhihi kartid because videoyaashaada already waa la gudbiyay ma garanaysaa marka waxaa la dhahaa Kenya hadda waxa xidaarta xitaa Google garay qof inaad social media ka dhex caysid waa cyberbullying haddaad wax baratay waad qori kartaa waana fiirin kartaa waa cyberbullying is a crime waa dambi inaad qof social media ka dhex caysid wuxuu rabo ha ahaado xitaa naagaha ma aragtay jirkooda ka ganacsado أنا وحس أفكي سو ما قبته هبلاياتي ما ديه كرتد because ونولشودي ونفتودي أدي wax shaqo kaaga jiro ma laha lagu leeyahay waa lagu dambi ayaa lagaaga dhigaa asaas marka xabso waa nag dagoodi aysan hore kugu soo sheegay dagoodihana waxay ku badan yihiin dawladda waayna ishak in lagu soo qaban doonana way ku dhaarteen أنا هذا وكوسي دقويا because واحد هذا فيديوهات كلام هاي on صور دقي دونا فيديوهات كلا أنت تسكو صور دقين هرتا يا ميرس جلاس بيق هذا إزدجي فريسو وحكوا صور سعدو الله وعلم وحبك ما وجدت والجرادين ويسان الجوب بعد جو يعني كده إن صباحي اللي جنوا حود هاي بكونوا يا سركالي نمرفو كعنت الدولة دقات بيقدرت هاي إسقرقري دوما مال والبقال لكن وجودن بين والسوق بندونا معنى هذا وايساس معنى هذا adi haddana walahi waan ku cabsaday markii la dhahay Kowsar keeskeeda booliis ayuu yeelaa oo waa hadda waa qof wanted ah oo loo baahan yahay oo la raadinayo xabsasay u aamusto horta soo markin mustalifo xitaa keesa booliistu u yeelo laakiin kii mustalifo way ku soo report gareysay yani oo way ka soo dacwootay lacala labadiina hadda isqabatiin ayada ka guuleysan doonto because already ayada case ayaa ka yeelo meeshas wayna soo sheegtay ina cayse oo yani videogaadana xaq u yeela laakiin kii xabso serious hadalkiisa fiican u dhageysiya kii xabso waa serious because xabso nin in adeerkeed lagama waynayo kooxda dambi baarista DCI-ga lagama waynayo CID ga lagama waynayo OCBD lagama waynayo OCS-na lagama waynayo ciddooda reerkooda saddex nin kale hadday isqabsadaan ayaga kugu filanba inay ku raadiyaan marka adiga dadkan iska caynaysid baxar ha ku galin wadankan sharciyaa jiro soo ma ogid Soomaali camal ma ah oo yani lis caynayo baalaha liska rifaayo oo yani lis bahdilaayo wadankan laba caaybo baxar weyn aad ku galaysaa laba caay inaad naag ku caysid ereyga aad isticmaalayso waa aqaanta oo dhiid ka bilaawanaaye iyo inaad qof ku caysid cudurka AIDS-ka qabta labadaas horta hadda ku caysid waa dambi weyn qof adigoo og xitaa inuu AIDS-ka qabo cudurka uu qowriyaa cudurka qabta haddaad ku dhahdid waa bas naagaha san hore kugu soo sheegaba jirkooda ka ganacsada heblay saasata ayadana haddaad dhahdid waa bas waa dambi weyn marka gabar dadka waajifta eberad ka dhigtay laakiin gabar walaashay camal ah maanta waxa dhahay kaale bal intay videoya because maxaa dhahday video aan ka haya adigoo qaaban walaahi qofka videoyaasha ku soo diray xitaa baxar ku jira hadaa video haysid waxa lagu dhahayaa qofkaneeto noloshiisa maxaa ku raaciye ma adiga dhashay maxaa isku tihiin noloshiisa adiga maxaa ku raaciyay waa gabar qaangaar ah maxaa ku daba dhigay waxay sameynaysaa waxa sameysay ilaa iyo banaankaas intay tagtay iskala warto it is none of your business lagu dhii waa dambi weyn oo lagu haysto video aan soo wada horta iska jooji xabso dacwadeeda haddii lagu soo qabto insha Allah had in lagu raadinayo waa runba to been ma aha oo keeskaada uu yeelo xagga
kowdii hore waxaa lagu dhahay xabsad dambe afkaada kuma soo qaadi kartid waa tan koowaad tan labaad fiidiyoyada xabsi ku caynaysa dhan channelkaada waa laga saaraya tan saddexaad xabso waad caysay cyberbullying markaad qof ku samaysid oo social media ka caysid qofkaas depression ku dhici karo soo maaha depression ku dhaco wuu xanuunsan kara hata heart attack ku dhici karo oo isbitaal la seexiyo marka xabsi hataa deerto waxay dhigi kartaa gabadhaaneeto waxay igu samaysay waa la xanuunsaday xitaa isbitaal aan la galay taas ayadana waa lagu ciqaabi karaa oo waxaa lagu dhahayaa inta isbitaalka ku isticmaashay dhan bixi ayadoo hataa hal shilin isticmaalinya hadday dhahdo bis depression igu dhacay oo isbitaalan gale waa ku dhamaatay marka saaxiibay saas ogaaw yaa isku badnaa meeshan Kenya la sharciya jir xitaa waan ii sheeg YouTube ka hadaa fiirisid wiil baa ku soo qoray waxaad sameynaysid meeshan Kenya la dhahaa waxaad sameynaysid waa cyberbullying hadaa isku badnaan wayso ku dhamaatay laga yaabo inuu yahay xabso familkeedii qof ka mid ah oo wax og marka aan hadda waanba ka soo hordhaco waan ku sheegay walaal xabso waxay sameynaysaa hooyada raali ugu faraha ka qaad ha ku baxar galin okay aminkan maxkamad iyo jail iyo ma ka kacda kama kacdid afkaada iyo ku gooyn kan carab la dhahayo waa dhibkiisa zaid kowde isku badnaa